الحمد لله هذه أمهات سنتهين إن واقعا إن ما أقانو walaalkay marna dumaashiga yartayna arka waa ku faraxsanahay my baby sister deeqa iyadana waatana walaalahayga kala kulli waa mahadsantihiin cameramanka everyone aad u mahadsantihiin waa ku faraxsanahay waxa u maleynaa xoogahan jooga hadda Canada marka feedback fiican waa idin haya haddii alla yiraaho feedback fiican waa idin sheegi doonaa si hagarbax ya markaan Toronto xoogaa arko marka aad u mahadsantihiin darajo fiican ayaad ugu soo dhaweyseen aadana u mahadsantihiin thank you adalay wax kale oo dhaha ma aqaanay marka hore soo dhawow mama Aamino Muuse Wehliye magacaaga aad u weyn yahay in maanta adoo garabkayga taagan aan sheegayana farxad weyn ay tahay aniga ka fartuun ahaan ku soo dhawow magaalada Toronto Canada waa joogtay maalmahanba laakiin maanta Toronto ayaan kugu soo dhaweyneynaa annagoo badan asxaab badan ehel iyo saxaafadii intuba waxaan ku leenahay annagoo aad ugu faraxsan aragtidaada ku soo dhawow magaalada Toronto kulamo badan oo Soomaali badan aad ku arki doontid saxaafada badan aad ku arki doontid ayaa inoo harsan soo dhaweyntaada kaliya airportka maanta joognaa laakiin soo dhaweyntii saxda ahayd ee Toronto ee aamudnayd waa ay harsan tahay xafladii quruxda badnayd ee lagu soo dhaweyn lahaa runtii ma sugi karno annagoo dhan ma sugi karno soo dhawaa marka la ku leenahay waa dhawahay waana mahadsantihiin waana idinka qabaa aad u mahadsantihiin so far so good ilaa ay inta Canada imaado wanaag maahan wax kale ma aan arkin marka aad u mahadsantihiin saxaafadan inay inta ku badan tahay waa ogahay waana xiisaynayaa ayagana inaan la kulmo maadaama isku mihnad nahay xagga waxa saxaafad badan kulama kulmin waxaan kula kulmay Duraan oo BBC-da marka shaqayn jiray qof kale ma aan arkin Edmonton laakiin halkaan waxaan rajaynaa inaa ku badan tihiin aad aan ugu faraxsanahay inaa horteeda saxaafadina joogto dhinaceygana ay joogto dhinacaana my baby sister ya iyo walaalahayga kaleeto soo wada dhaweeyeen aad u mahadsantihiin soo dhawaa marka la kulay maanta galabta waa galab weyn oo aad noogu weyn dhammaan qoyskeena oo dhan maxuu ahaan familkeena asxaabteena Soomaalida oo dhan kuwii Somali community waxa wadanka nagu soo booqday walaashay Aamino Muuse Wehliye oo ah senior journalist oo ka soo shaqeysay BBC oo ka soo shaqeysay hay'ado badan oo maaragtay qof experience oo u leh maaragtay khibrad u leh warbaahinta iyo arrimaha bulshada marka Aamino ayadan maaragtay sugaynaa waxay naga tiraahdo hadduu Ilaahay raahdo ayadan ku soo dhaweynaa Aamino welcome to Toronto welcome to Ontario welcome to Fan waa lagu sugaayay soo dhawaa waa maadsantahay horta koow gabadhan walaashay waaye maana Muuse Wehliye cadow waa la dhahaa dad badan oo walaalaheeya meesha joogo hase yeeshee soo dhaweynta iyadoo magaca community-ga ku hadlaysa ay soo dhaweysay dad badan oo kalena isaas oo kale igu soo dhaweeyeen waa qabalay waana mahadsantihiin Toronto waa ku cusubahay weligay ma imaanin not only North America oo dhan aan ku cusubahay Canada aan joogay dhowr maalmood some idea ka soo qaatay Edmonton iyo Toronto hadda imaaday isbarbardhig maba layga rabo waa laba magaalo oo maxay tahay midna ay aad u weyn tahay oo dadku iyo saxmadu ku badan yihiin midna ay dadku ku yar yihiin marka insha Allah hadalba waa noo dambeeya haddii alla yiraahdo soo noocyo walba iyo warbaahinta Toronto joogto aniga halkan waxa laga yaabaa inaad dadku inuu nagu wareeraan maxaa yeelay qofkii warbaahiye haddana anoo ila dhashay qofkii ganacsate haddana anoo ila dhashay qofkii dhakhtar haddana anoo ila dhashay waa la yaabaa moogtaa laakiin hore ayda kuugu sheega aniga fan iga ma aha but I came from Nobel family maadaama Nobel family ka imaaday oo xataa excited ku sii ahay eedooyinkayga adeeradayda kulli ina arko walaalahay
ma la soo koobi karo inaad foorateen bagala ma raba kowdhe hadalka intaa ku joojinaa marka insha allah marka aamina soo dhawaaw waxaa duu ilaa yidhahda 19 bisha waxaa noo casuuman niyuusyada waaweyn ee magaaladan Toronto waxaa noo casuuman Sir TV hadduu ilaa yidhaahdo oo kasoo qaybgali doono habeenkaas xafladda waxaa kasoo qaybgali doono Somali community waxaa kasoo qaybgali doono Canadiiska cid walba oo Soomaali ah ama bini aadan ah ama Soomaali ama Canadiis ah way u furan tahay xafladda kusoo dhawaada hadduu ilaa yidhaahdo waa 19 waana soo post gareeyay waxaa ka heli kartiin website-kayga Facebook السلام عليكم ورحمة الله حبرتي زينة وكسو دوينا يا وحام سو دوينا مانتا قبلين آمين موسى وهلية أنا جوحان أهاي هو يدي مان موسى أهاي يو نحيد آمين موسى مان وسو كيمت إن سو دوان آمينو ولا على حاجي والد كاجي welcome to Toronto Imani Maino